bismillaahi raxmaani raxiim. kulan wacan daawadayaal meel kastoo aad joogtaan. halkan waa Caasimada TV. qodobada wararkeena caawa waxa ugu waaweyn. gudoomiye ku-xigeenka amniga maamulka gobolka Banaadir Cali Yare oo eedeyn culus u jeediyay madaxweyne Qoorqoor kadib markii maanta laga celiyay garoonka diyaaradaha ee Aadan Cadde. taliyihii hore ee hay'adda sirdoonka Soomaaliya oo maanta gaaray magaalada Beledweyne oo dhawaan lagu qaban doono doorashada golaha shacabka. afhayeenka booliiska Soomaaliyana waxa uu faahfaahin ka bixiyay sababta Cabdiweli Muudey loogu diiday inuu u duulo magaalada Baraawe. iyo sidoo kale waxaad warkana ku daawan doontaan nin Ciraaqi ah oo dilay gabar Soomaali ah oo xiriir jacayl ka diiday. wararkaasi oo dhan ayaan faahfaahin doonaa. waa habeen Isniin ah, Talaado ayaa soo galaysa 14 Febraayo sanadka 2022. hadaad nagu cusub tahay subscribe saar kanaalkeena kadibna fura gambaleelka. sidoo kale like garee muuqaalka si ay dad badan u daawadaan. u diyaar garoowa faahfaahinta wararkaasi. waa hagaagan ku bilaabo warkeena. gudoomiye ku-xigeenka amniga iyo siyaasadda maamulka gobolka Banaadir Cali Yare ayaa maanta laga celiyay garoonka diyaaradaha ee Aadan Cadde. Cali Yare iyo ciidan uu watay oo ku wajahnaa magaalada Guriceel si uu magaaladaasi uga sameeyo olole la xiriira dhanka kursiga Hoob 147 ayaa loo diiday inuu garoonka ka dhoofo. ciidamada nabasugidda ee garoonka Aadan Cadde ayaa la xaqiijiyay inay u diideen inuu ka dhoofo garoonka, waxaana ugu dambeyn baaqday safarkiisa oo si weyn looga diyaar garoobay magaalada Guriceel ee gobolka Galgaduud. Cali Yare ayaa sheegay in safarkiisa uu ku tagi lahaa dowlad goboleedka Galmudug aysan ka baajin hay'adda NISA. gudoomiye Cali Yare ayaa madaxweynaha maamulka Galmudug Axmed Cabdi Kaari Qoorqoor ku eedeeyay inuu ka dambeeyay in la baajiyo safarkii uu ku tagi lahaa magaalada Guriceel, halkaasi oo uu qorsheynayay inuu kaga sii gudbo magaalada Dhuusamareeb. Cali Yare ayaa qoraal uu soo dhigay bartiisa Facebook ku sheegay in madaxweynaha Galmudug Axmed Qoorqoor uu hay'adda NISA ka dalbaday in la baajiyo safarkiisa, balse wuxuu sheegay in hay'adda NISA ay taasi diiday. waxaan beeninayaa wararka sheegaya in hay'adda NISA oo ay madax ka yihiin saaxiibo aan shaqo wadaagnahay ay hor istaag ku sameeyeen aniga iyo wafdigii ila socday oo safar u ahaa Galmudug. ma jirto sabab ay hay'ad amni oo gobolka Banaadir ka howlgasha ay ku hor istaagi karto safar aan hogaaminayo maadaama aan anigu fadhiyo xafiiska amniga caasimadda. waxaase bulshadu u xaqiijinayaa inuu shalay, xalay iyo saakayba madaxweynaha Galmudug la soo xiriiray hay'adda NISA kana dalbaday in aniga iyo wafdigayga aanan Galmudug u soo duuli karin sida ay madaxda NISA ii xaqiijiyeen, ayuu yiri Cali Yare. hadalka gudoomiye Cali Yare ayaa u muuqda inuu yahay mid iskhilaafsan, waxaana isqaban la hadalkiisa ah in hay'adda NISA ay diiday codsiga Qoorqoor iyo in maanta laga celiyay garoonka. sida ila wareedi lagu kalsoonaan karo ay inoo xaqiijiyeen, Cali Yare iyo ciidamo uu watay ayaa maanta loo diiday inay ka dhoofaan garoonka Aadan Cadde, waxaana arrintaasi ka shaqeeyay madaxweynaha Galmudug oo doonayo in kursiga Hoob 147 loo xiro xildhibaan Mahad Salaad. Cali Yare ayaa ka mid ahaa dadka aadka ugu dhow madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo, isagoona u sharaxnaa mid ka mid ah kuraasta taala magaalada Dhuusamareeb, kuwaas oo deegaan doorashadoodu tahay Galmudug. arrintan ayaa ku soo beegmaysa xilli shalay isla garoonka Aadan Cadde laga celiyay gudoomiye ku-xigeenka koowaad ee golaha shacabka Cabdiweli Muudey, kaas oo safar u ahaa magaalada Baraawe ee caasimadda maamulka Koonfur Galbeed. toddobaadkan ayaa la filayaa in doorashada kursiga Hoob 147 ay ka dhacdo magaalada Dhuusamareeb, waxaana madaxweynaha Galmudug ka go'an inuu kursigan ku soo baxo Mahad Salaad oo 4 sano ee la soo dhaafay ku fadhiyay. dhinaca kale, hadalahayn fara badan oo ay ku lamaanan tahay cabsi ayaa laga muujinayaa inuu dhiig ku daato kursiga Hoob 147 kaasi oo ay ku tartami doonaan Mahad Salaad iyo Cali Yare oo uu wato madaxweyne Farmaajo. madaxweyne Farmaajo ayaa kursigan la doonaya Cali Yare, waxaana ciidamo fara badan laga dejiyay Dhuusamareeb, kuwaas oo la doonayo in ay kursiga hab xoog ah uga soo qaadaan. kursigan waxaa beesha iska leh 4 sano ee la soo dhaafay ku matalayay Mahad Salaad, waxaase iminka la doonayaa in laga farmaroojiyo, waxaana dadaal ugu jira in kursigan Mahad Salaad laga reebo Fahad Yaasiin iyo madaxweyne Farmaajo, kuwaas oo doorbidaya Cali Yare oo ah nin si gaar ah iyaga ugu shaqeeya ama u taageersan. maanta oo Isniin ah ayuu Cali Yare qorsheynayay inuu magaalada Guriceel la tago ciidamadii ugu badnaa
oo amnigiisa ilaaliya hase ahaatee waa laga diiday. waxaa isna hub iyo ciidan aruursi wadamaha salaad si uu isaga difaaco kooxda Villa Soomaaliya ee weerarka ku ah matalaada kursiga Hob 147. waxgaradka ayaa wada kulamo xaaladda lagu dejinayo iyadoo ku talinaya in labada nin loo qabto tartan daafuran, balse qorqor ayaa taasi diidan maadaama madaxtooyada Soomaaliya ay ku amartay in kursiga uu u xiro Cali Yare. sida ilwareedi lagu kalsoonaan karo ay sheegayaan ergada codeynaysa ayaa laga dhigay ciidamo dharcad ah oo aan u dhalan reerka iska leh kursiga, waana arinta uu ka caabanayo Maha Salaad kaasi oo saacadaha soo socda kulan la yeelan doona Qoorqoor. lama oga xaalka kursigan sida uu noqon doono iyo habka doorashadiisa ay u dhici doonto, hase ahaatee waxay ka mid tahay ama uu ka mid yahay kursigan kuwo badan oo isha lagu wada hayo. wixii ku soo kordhana wararkeena dambe ayaad kula socon doontaan. Caasimada TV ayaa naga daawanaysaan, fadlan daawada subscribe saar kanaalkeena kadibna fura gambaleelka si wararka aan halkan soo dhigno aad u hesho. agaasimihii hore ee hay'adda nabadsugidda Soomaaliya Cabdullaahi Maxamed Cali Sanbalolshe ayaa isaga iyo murashaxiin kale waxa ay maanta gaareen magaalada Beledweyne. Sanbalolshe oo kursi xildhibaannimo isku soo taagay ayaa waxa uu ka raaligeliyay dadkii waqtiga badan ku sugayay garoonka diyaaradaha Ugaas Khalifa ee Beledweyne. waxa uu sheegay in uu soo dhaweynayo dadaalada dib u heshiisiinta ah ee madaxweyne Cali Guudlaawo uu ka wado magaalada Beledweyne ayna ku biiri doonaan. raja ahaan waxa uu Sanbalolshe sheegay inay qabaan guul ay gaaraan oo kursiga uu raadinayo beesha xawaadle ku sharafto. safarka Sanbalolshe ayaa waxa ku wehlinayay xildhibaan Cabdirasaaq Maxamed Cumar oo mar kale doonaya inuu dib u difaacdo kursigiisa. afhayeenka ciidanka booliska Soomaaliya Cabdifitaax Aadan Xasan oo la hadlay warbaahinta ayaa faahfaahin ka bixiyay is-hortaagii shalay lagu sameeyay gudoomiye ku-xigeenka koowaad ee golaha shacabka Cabdiweli Sheekh Ibraahim Muudey oo loo diiday inuu ka baxo garoonka Aadan Cadde xilli uu ku sii jeeday magaalo xeebeedka Barraawe. Cabdifitaax Aadan ayaa sababta ku sheegay in gudoomiyuhu watay ciidamo fara badan iyo hub, taasina ay keentay in laga hor istaago inuu ciidamadaasi kala baxo garoonka. sidoo kale wuxuu intaasi ku daray in isaga aan si gaar ah loo bartilmaameysan balse ujeedka uu ahaa arrimo la xiriira amniga doorashada. afhayeenka ayaa xusay in amniga Barraawe uu sugan yahay isla markaana murashaxiinta tagaya kaliya loo ogol yahay ilaa 4 ama 5 nin oo booliis ah oo amnigiisa si gaar u ilaaliya sida uu hadalka u dhigay. dhammaan murashaxiinta ayuu ugu baaqay inay ilaaliyaan xasiloonida amniga maadaama lagu jiro doorasho iyaguna ay mas'uul ka yihiin nabadgelyada guud ee doorashooyinka. hadalkan wuxuu ku soo aadayaa iyada oo shalay garoonka Aadan Cadde lagu celiyay gudoomiye Muudey oo ku sii socda magaalada Barraawe oo deegaan doorashadiisu tahay si uu mar kale ugu tartamo kursiga uu ku fadhiyo oo ay sumadiisu tahay Hob 145. si kastaba Cabdiweli Muudey oo dhacdada kadib shir jaraa'id u qabtay wariyaasha ayaa eedeen u jeediyay Koonfur Galbeed iyo mas'uuliyiin ka tirsan dawladda, wuxuuna sheegay in la boobayo kursigiisa isagoo shaaciyay in loo rabo qof gaar ah. gabagabada wararkeena ayaan soo gaarnay. ugu dambeyn haddaan eegno, allaha u naxariistee gabar Soomaali ah oo ka mid ahayd Soomaalida ku nool magaalada Kuala Lumpur ee dalka Malaysia ayaa shalay lagu dilay magaaladaasi. gabadha oo lagu magacaabi jiray Dahabo Cumar ayaa waxaa lagu dilay meel aan ka fogeyn maqaaxi ay ka shaqayn jirtay, waxaana dilkeeda lala xiriirinayaa nin Ciraaqi ah oo dhowr jeer xiriir jecel u soo bandhigtay. Maxamuud Cabdullaahi Bille oo ka mid ah ardayda wax ka barata dalka Malaysia oo la hadlay warbaahinta ayaa sheegay in gabadha la dilay ay in badan ka cagajiiday inay xiriir la samayso ninkaasi. dilka gabadha ayaa lagu wargeliyay safaaradda Soomaaliya ee Malaysia ayadoo mas'uuliyiinta safaaradda la kulmeen booliiska gacanta ku haya kiiskeeda kaasi oo weli ay baaristiisa socoto. safaaradda waxay si dhow ula shaqaynaysaa jaaliyadda iyo booliiska oo arintan gacanta ku haya, waxaana mar walba u taagannahay in aan ku qidmayno oo dhibta Soomaalida ee Malaysia ku nool gacan ka geysano wax kasta oo ay u baahan yihiin, ayay tiri Amaal Maxamed Saciid oo aasiyaha safaaradda Soomaaliya ee dalka Malaysia. allah u naxariistee Dahabo ayaa la sheegay inay ku jirtay da'da 20-meeyada, waxayna ka mid ahayd dadka farkutiriska ah ee ka shaqeeya maqaaxiyaha, ugu dambeynna sababsatay gacanta ninka ay xiriirka ka diiday. daawadayaal wararkaasi ayaa Soomaaliya iyo caalamka ugu waaweynaa xilligan, waxaadna ka daawanayseen Caasimada TV. inta ku kulmayno wararkeena soo socda nabadgelyo.